ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الإخفاء أحكام تنون كالربان إيا تنوين توحاكمت الإخفاء إلى دقيسو تسالها صوص عضا. فانظروا منثورا من دون الله بأس شديد. ما إلى درنتي نون كالربان إيا تنوين كإن لقريي waxaan aragnaa nuunka reeban marka la ikhfaynayay in uu galay hal kelimad sidoo kale wuxuu galaa laba kelimadood. nuunka reeban iyo tanwiinka marka la ikhfaynayo waxaa la socoto qunno qadarkeedu yahay 2 xarako waxaana loo akhrinayaa sidan oo kale. laakiin iska fiiri qunnada ama waa la yareeyaa ama waa la weyneeyaa. qunnada waxaa la yareeyaa marka nuunka reeban ama tanwiinka uu ka daba dhaco xaraf ka mid ah xuruufta la yareeyo sida kelimadan oo kale. mansuura. waxaana la weyneeyaa marka uu ka daba dhaco xaraf ka mid ah xuruufta la weyneeyo sida fanzuruu. ikhfuhu goormuu yimaadaa? ikhfuhu wuxuu yimaadaa marka nuunka reeban ama tanwiinka ay ka daba dhacaan xuruuftan soo socota. الصاد الذال الثاء الكاف الجيم الشين القاف السين الدال الطاء الزاي الفاء التاء الضاد الظاء. si xifdigeedu uu u sahlanaado waxay ku soo koobeen gabaygan. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. kelimad walba xarafka ugu horeeyo wuxuu matalahayaa xuruuftii ikhfaha. qeexid ikhfaha xaqiiqiga waxaa weeye in loogu dhawaaqo xarafka xaalad u dhaxayso idhaarka iyo idqaamka wuxuuna noqonayaa marka nuunka reeban ama tanwiinka uu ka daba dhaco xaraf ka mid ah xuruufta ikhfaha.